nabadgelyo korkaaga ha ahaato ku soo dhawow barashada xisaabta xilli walba goor walba iyo weliba waqti walba oo aad adigu jeceshahay daawade magacaygu waa Shinigestir waxaan weli ku guda jirnaa barashada xisaabta jajabta caawana mawduucaanu wuxuu ku saabsan yahay mixed fractions jajabyo dhafan waxaana ku baranaynaa videogan si khaas ah isku qaybinta jajabyada dhafan tusaale marka isku qaybi jajabyada dhafan ee hoos kaaga muuqda waxaa halkan nooga muuqda jajabyo dhafan oo aan rabno inaan isku qaybino daawade marka koowaad aad rabtid inaad isku qaybisid jajabyada dhafan waxaa laga maarmaan ah inaad taqaanid sida jajabyada dhafan loogu bedelo jajabyo maqumana ah markaa kadibna inaad jajabyada maqumanaha ah aad isku qaybisid markaa kadibna jawaabta aad soo heshid aad ka dhigi kartid mixed fraction ama jajabyo dhafan waa intaas un bal aan sameyno marka koowaad jajabyadan ayaan waxaan u bedelinaa jajabyo maqumana ah waxaan dhahaynaa marka jajabyada dhafan loo bedelayo jajabyo maqumana ah waxaa lasoo qaataa marka koowaad hooseeya oo waxaad dhihi hooseeyuhu waa 4 markaana 4tan hooseeyaha ah ayaa waxaad ku dhufani tirada idil waxaad dhihi 4 lagu dhuftay 2 waxa weeyaan 8 waxaad ku dari markaa tirada sareeyaha ah 8 lagu daray 1 waa 9 sidaas ayaa waxaad ka dhigtay tiradan mixed-ka ah ayaa waxaad ka dhigtay jajab maqumana ah jajab maqumana ahna waa jajabka sareeyuhu ka weyn yahay hooseeya marka kadib ayaa waxaad soo qaadanay isku qaybinta oo loo qaybi baad dhihi haddana tan ayaan xalinaynaa oo waxaan ka dhigaynaa jajab maqumane waxaan dhahnay marka koowaad waxaan soo qaadanaynaa hooseeya oo waxaan ka dhigaynaa hooseeye kadibna hooseeyaha waxaan ku dhufanaynaa tirada idil waxaan dhahaynaa 4 lagu dhuftay 1 waa isla 4tii kadibna waxaan ku daraynaa 3da oo waxay noqonaysaa 7 waxaan dhahaynaa waa 7 halka markii aan joogno daawade ayaa waxaan xalinaynaa isku qaybinta jajabta marka la isku qaybinayo jajabtana waxaa la maraa dhowr qaybood marka koowaad waxaa la sameeyaa jajabtan hore sideeda ayaa loo soo qaataa oo waxaad dhihi 9/4 haye marka labaad waxaa sameyni calaamadda isku qaybintana waxaad u bedeli calaamadda isku dhufashada waxaad dhihi oo lagu dhuftay marka saddexaadna waxaad dhihi qaybtan ayaad kala rogiyo hooseeyaha waxaad ka dhigi sareeye waxaad dhihi 4 sareeyahana waxaad ka dhigi hooseeye 4/7 marka kadib ayaa waxaad xalini isku dhufashada jajabta isku dhufashada jajabtana waxaa la isku dhuftaa sareeyaasha iyo hooseeyaasha waxaad dhihi 9 lagu dhuftay 4 waa 36 4 lagu dhuftay 7na waxa weeyaan 28 markaasaa waxaad hadana samayn kartaa haddaad rabtid waxaad dhan walba aad u qaybin kartaa tiro u wada qaybsamaysa si aad u sii yareysatid xisaabtan fractionka waxaan dhihi karnaa waxaan u qaybinaynaa dhan walba 36 ayaan waxaan u qaybinaynaa 4 waa 9 28na waxaan u qaybinaynaa 4 halkan u qaybi 4 halkan u qaybi 4 36 loo qaybiyay 4 waxay la mid tahay 9 28 loo qaybiyay 4na waxay noqonaysaa 28 loo qaybiyay 4 waxay noqonaysaa 7 saas markaad u soo heshid jawaabta ayaad jawaabtan waxaad u bedeli mixed fraction waxaan soo qaadanay cashirkii ahaa sida improper fraction looga dhigo mixed fraction sidaa darteed waxaan dhahaynaa xisaabtan ayaan u bedelinaa mixed fraction waxaana laga maarmaan ah inaan naqaano markaan rabno inaan improper fraction aan ka dhigno mixed fraction inaan naqaano xisaabta isku qaybinta waxaan dhahaynaa marka 9 loo qaybiyay 7
haye tirada 7 lagu dhuftay 9 keento waa tiradee ama u soo dhaweysa waa hal marka hal lagu dhuftay 7 waa 7dii markaas waxa dhii 9 laga jaray 7 waa 2 sidaa darteed marka inta aan sameeyno waxaan ognahay tiradan kor ka saaran inay tahay tira idil tiradana waxaan ognahay inay noqonayso hooseeye tiradana waxay inoo noqonaysaa sareeye marka waxaan dhahaynaa hal haye 2 7 ayay noqotay markaan jawaabtii aan u bedelnay mixed fraction sidaa darteed su'aasheeni ahayd 2 hal waxaan jeegaa 2 hal afraad loo qaybiyey hal 3 afraad waxay la mid tahay hal 2 7 sidaas ayaa tirooyinka mixedka ah la isku qaybiyaa oo wadada dheer ayaa la maraa intii aan daawaday video lamid ah ku kulmi doonana waxaan idin si dhaafayaa nabadgelyo